السلام عليكم. magacaygu waa Cabdilatiif Xirsi. waxaan rabaa halkan inaan ku soo gudbiyo qiso ka tarjumaysa ama muujinaysa erayada ama waxa qofka lagu yiraahdo saameynta ay ku yeeshaan noloshiisa. marka qisadan waxa iga sheekaysay mid kamid ah maamooyinka Soomaaliyeed khayr Allah siiyo meel walba ay ku sugan yihiin. waxay leedahay marka waxaan ka shaqeynayay meel MCA marka aan shaqadii ku jira ayaa maalin maalmaha kamid ah waxa ii yimid ama waxa ii timid hooyo Soomaaliyeed oo wadata wiil. marka hooyadii markay soo fariisatay ayadii wiilkeedii intii aan shaqadii u waday ayaan hooyada waxaan weydiiyay dhowr su'aalood oo ku saabsan xiriirka ka dhaxeeya ayada iyo wiilkeeda. marka aan waxaan ku yiri hooyo erayo noocee ayad wiilkaaga u isticmaashaa. markaasay waxay tiri hooyadii wiilka wadatay inta badan wiilkayga waxaan u isticmaalaa erayo adag oo qalafsan u isticmaalaa sida nacas yahow, doqon yahow, wax matara yahow iyo wixii la halmaala. marka waxay tiri erayadii sidii aan ugu waday wiilkii in badan mar walbo yacni aan wax u diraayo mar walbo aan wax u sheegayo erayadaasaan yacni aan ku tilmaamaa. maalin maalmaha kamid marka wiilku marka wuxuu leeyahay saaxiibuu leeyahay oo banaanku intuu u baxo dhalinyaro la soo ciyaara la soo baashala waa uu soo laabtaa. maalin maalmaha kamid marka dhalinyaradii markuu la soo dhamaystay waqtigii damaashaadka ayuu guriga ku soo laabtay asagoo ordayo marka ii yimid bay tiri wiilkii. markaasuu waxa uu yiri hooyo maantay waxaan soo arkay wiil sidaydoo kale doqon ah oo nacas ah. hooyadii waxay tiri markaan erayada wiilkaygii markaan ka maqlay aad baan runtii u fajacay sababtoo ah waxaan ogaaday bay tiri erayadii aan u isticmaali jiray wiilkayga ee doqon iyo nacas iyo wax matarayo iyo kuwa la midka ah inay saameyn weyn noloshiisa ay ku yeesheen ilaa ay noqdeen qayb kamid ah identity-giisa ama waxyaabaha uu iska aaminsan yahay ilaa ay ka mid noqdeen. marka qisadu waxay ka tarjumaysaa waxay tahay erayada ama kelmaduhu sidoodaba waxay leeyihiin awood aanu la dareemi karin bay leeyihiin. marka ka taxadar erayga aad u qofka u isticmaalayso ama erayga qofka aad leedahay ka taxadar in badan. Thank you.